nin Mareykan cabo Mike Branch la yiraahdo waa nin 70yadii islaamay waa nin weyn oo xanuunsanaya state kan joogay buu ku noolaa laakiin Texas buu u guuray reer Indiana ayuu ahaa markuu islaamay reer Indiana state buu joogay sababtu uu islaamay baldhigiiso wuxuu maalin anoon islaamka waxa ka aqoon ayun baa waxaan nuun bal masaajidkan gal dabcan marka samarka xilliga kuleelka dadku socks ma xidhaan sagarmaysid marka qofka saaba isagoo bilaa socks markuu soo weysaysto ayaa safkii baa la tukanaya waxyaabo inaga aan inaga fikirsiin baa ka fikirsiya waliba qofku ilaahay hanuun iyo xaqiiqo la doonayo wuxuu markii saa loo rukuucay ayun baa dadka caagahoogu mar eegun left and right midig iyo bidix bisoo kala wada color weeyaan mid cagtiisu madowdahay mid cagtiisu cadday mid cagtiisu brown tahay mid maxay ay tahay waan yaabun buu ku sababtu ay mad garanaysa sababtu uu yaabay wuxuu yaabay dadkan wada kala colorka ah ee haddana the same worship place meel kaliya ku wada cibaadaysanaya diinta waxa afartay waa diin sax ah sababtu leeyahay baan idin sheegay hadaba waxa weyn Sunday soo maalinta Kiristaankee adduunka dhan maaha waa maalinta kaniisada tagaa soo maaha waxa la yiraahdaa Mareykan maalinta ugu raysiisan badan maalinta ugu cunsuriyad badan Mareykan waa aroornimada subaxnimo sababtu aad garanaysaan qolo walbaaba kaniisada tagtaa madowga cadaanka lama tukado soo garmaysid in cadaanku Isbaanishka lama tukadaan Isbaanishku madowga lama tukadaan qolo walba iyagoo ma garanaysaa isirkoogii iyo ethnic groupkoogii raacaya waxa weeyaan waxa helaysaa kaniisada ay leeyihiin Greego kaniisada ay leeyihiin Kiristaanka Carabtu Kiristaanka mid madowgu leeyahay mid Isbaanishku leeyahay mid cadaanku leeyahay marka wuxuu hadii Kiristaankii xaq sheeganayaan ku dhashay lagu soo koriyay aanu madowgii cadaankii aanu midayn karin oo kaniisada cadaanka aanu madowgii aan loo ogoleen diintani cadaankii iyo madowgii iyo yalowgii waxa doonaan ahaadaan isku wada keentay waa diin sax sidoo ku islaamay lamaantana waa muslim wuuna xajiyay alxamdulillah rabbil alamin ila khaatimadaha waa jaafan hasiyo